waxaana ina midaynaya oo ummadaha mideeya cadow shisheeya markuu bannaanka soo istaago Kenya hadda ina midaynayso way ku mahadsantahay inay ina midayso baddeena inuu qabsatay markaas Facebook akhrilaadi kulli waxay wada qorayaan baddeena dhulkeena wadankeena goorma inuu gudumayso warkaas waxaan maqli jirnay reerkeena maamul goboleedkeena wax hoose laga sheekeyn jiray maanta kor loo kacay marka Soomaaliyay baddeeni wadankeeni ummadeeni qofku markuu uu nool yahay waa inuu u nool yahay wax la yaqaano oo muhiimada adduunkan u joogto maxay tahay dadka aan iimaanka lahayn waa la yaqaan waxay u joogan alladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wadada wayada hadaad kuwaas marka ku dayata ka war oo tiraado war maxaad u nooshahay ya'kuluna wa yatamatta'una war waxaas maxmaa xooluhuba ya'kuluna wayhin wa yatamatta'una wayhin waxaas wax loo noolaada ma ah muhiimada loo nool yahay muxuu yahay yaa ayuha alladina aamanu اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم إلهي بعد دورتالي إن مسلم نقطان إذنكم مع أودينا معه هو اجتباكم إلهي بعد دورتي دور الشد إلهي إن دورتي مسلم إن قد سو إن قدرنا له مرة ما كان قدرين هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين إلهي بعد يكون مقع المسلمين باتين مسلمين مركا محالة ربا مسلمين ومحالة ربا وحالة ربا أدوكا رسولكنا دينتي إنوغة تغيينو إنو مرخاتي فرو أنك صوب حانو إنغونا أمدها كالي إنا نكون مرخاتي فرنوه أنا هنواد قردرنتين الدين تإلهي كتوسنا هذا نبكنا جوجيا سيسا الله لنا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير دين تقبصدا صلاة كذا ده أهل الدين النقضة إلهي بعدين كالمين آية أنت هسي مركز تيل بعضنا آية مركز هذا وطن كان صوماليا يعني مهمتي إلهي نوع دورته هو اجتباكم تعيد إسلامي ماذا عيد سي لي نقرب منهن محايا لي مسلمين تحلوية قانا كتاب القرآن كي رميسيهن هدي أي مشاكل سوكا لنحق قالوا إنه ترتيب وكلا بحان عدو يصاحب كان أي كلا قرطان dad walaalo ah oo Soomaali ah hadii cadaawad ay u maleeyaan in ayaguna dhaxtooda taalo meesha aan gaarnay oo falxuntahay waxaan rabaa marka ummadana Soomaaliyeed alxamdulillah hadda wal roon yahay oo si mar la ahaan jiray lama aha Soomaali way isfahamtay reer isuma dagaalsano oo cudurka ugu xumaaya ummadan kala gaabiyay qabyaalada ah alxamdulillah rabbil alamin wuu baabay ugu dhamaaday markaas hadii la ismucaaradi iyo hadii la istaageeriba dhinac walba oo dhinacyada ishaya qabaa'ilka Soomaaliyeed waa lagu jiraa kana uu ku jiraa kana uu ku jiraa kana uu ku jiraa kana uu ku jiraa alxamdulillah rabbil alamin taas nafti kala faa'iido hadii dhinac loo kala bixi lahaa aan isku bilownay noqon lahayd hadda koora waxa lina wuxuu arkay laba saf oo isdagaalays uu dhex istaagay Soomaali waxay isu dagaali jireen qabiil iyo qabiil Soomaalina qabaa'ilkeeda ree abti iyo ree adeer way leeyihiin labadii saf isdagaalaysay yaa wuxuu ku arkay dhinacan ree abtigi iyo ree adeerkiina ay ku jiraan dhinacan kale ree abtigiina ay ku jiraan ree adeerkiina ay ku jiraan waana la isgaraacayaa haye qabiilkii la kasi jiray marka ma ah wuu fahmi waay marka si loo kala jiro intuu dhaxda ka istaaxoore walaalayaal ma isin warsaday sin sijar man sheegtana sida la isula jiro ma ay sheegtaan dagaalka dhinacan ka gale haday kala bixi lahayn ree adeerku dhinac noqon lahaa ree abtuu dhinac noqon lahaa wuxuu fahmayaa laba jifo oo Soomaaliyeed oo islaynaysa ama uu iska tagi lahaa ama mid ayuu raaci lahaa laakiin markay isku googo'an yihiin hayo si la isula jiraa marka hadda waxaan ka wadaa Soomaalida in siyaasadda la isku haysto Soomaa si la isula jiraa ma kala saari kartaa adiga si loo kala jiro iyo qabaa'il isdagaalayo Soomaaliyeed ma jiro alxamdulillah rabbil alamin magaalo walba oo Soomaaliyeedna way iska degantahay nabad ay qabtaa magaalooyin isku soo duuduulina ma jiraan marka wixii iswaawaalay moogiye
wax mushkilo ina haysata ma jirto alxamdulilah tartiibteena midda kale Soomaalida hadda garaadkeedu xoogaa uu soo yara kacayaayo maalmahan waxaa soo bilowday wadanku inuu inaga dhaxeeyo waxaana ina midaynaayo oo ummadaha mideeya cadow shisheeye markuu banaanka soo istaago Kenya hadda ina midaynayso ina ku mahadsantahay ina midayso badeena inuu qabsatay markaas Facebook akhrilaadi kulli waxay wada qorayaan badeena dhulkeena wadankeena goorma inuu gudumayso warkaas waxaan maqli jirnay reerkeena maamul goboleedkeena wax hoose laga sheekeyn jiray maanta kor loo kacay marka Soomaaliyay badeeni wadankeeni ummadeeni alxamdulilaahi rabbil caalamiin halkaas laga wada marka kor loo socdo gadaal yaa loo noqonin hal mushkila in haysato Soomaalideeni inay is aaminaan oo dad akhyaar ah oo maslaxad doon ah arintooda u dhiibtaan oo arintii la xalliyo weli kumayna guulaysan waxa war laga sugayaa dadko dhanna ma laakiin qaar ka sugaaya kulli aanu kuma jiro kuwa ka sugaaya beesha caalamka waxa la dhaho Soomaali inay dhahdo kaalay Soomaaliyay ahlu jannatihiina muslimiinatihiina mu'miniinatihiina arrimiin oo idinku isku hagaajiyay waa idinkaas isku toos oo walaalaatihiina hor u socda haddaad ka sugtaan quraanka ma aydan akhrinin saas haddaad sugaysaan quraanka saas ma sheegin quraanku wuxuu yaa ayuha alladina aamanu in tudiicu so quraan ma su'aal al-imran ma in tudiicu alladina kafaru yarudduukum ala a'qaabikum fatanqalibu khasirin haddaad warkooda yeeshaan gadaal inta idin celiyaan from zero laga soo bilaabi doonaa fatanqalibu khasirin way xageen aadna bal inaad kuwaas war ka dhageystaan xaq iska dhigtaan bal waa ka guurmoogtahay Allahu mawlaakum wa huwa khayrun naasirin hadduu ilaahay idin gargaaro in yansurkum Allahu fala ghaaliba lakum wa in yakhdhulkum hadduu ilaahay idin hoojiyana cid wax idin taraysa ma jirto ilaahay suu inoo gargaari marka ilaahay wuxuu inoo gargaara ilaahay wuxuu in tansurullaha yansurkum haddaad ilaahay diintiisa u gargaartaan ilaahay wuu idin gargaari waa isku xiran yihiin marka inna waxaa laynaga rabaa inaan diinteena ku kalsoonaano oo walaala aan ahaano muslimiinta maxaa xiriir ka dhaxeeya nabiga sallallahu alayhi wasallam wada jecelin muhammadun rasuulullaahi walladina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffari ruhamaa'u baynahum adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirina xagee laga keenay inagum bay soo awood badan haddii waraa joog la dhahana joogaa la dhahay waraadi dabaal maanta yaa akhi walaalka Soomaaliga ee muslimka ah warkiisa ma qaadatid maya oo seerta marka adiga aad u sheeg saarto marka waxa Soomaali waxa la rabaa cid ku maqan oo wax ka sugi ma jirtee Soomaaliya horta kala nabad gala magaalooyinka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dal iyo dawlad meel ay joogaan qof walba walaalka kale nabadgeli kala nabad gala haddii sida fiican aan helno oo ummad isku toosan oo is ogol aan helnana aan horay u socono haddii aan taa la helinna yaan la isaga darine tartiib hadda magaaladeena Muqdisho wixii aan ku soo marnayba hadda sibay noo tahay dad shaqaysanaya hawlahooda wata qabiil aan isu fiirinaynin yani Soomaali oo dhan meel kasta uu ka yimaado Soomaaligu meel qaarkood waxa laga yaabaa in yaa tahay xageed u socota ay la siraado laakiin magaaladan dadka qaar waxay sheegeen mesela meel ay ka imaanayaan asagoo aaminsan hadduu Muqdisho lagu hadhigo in ama la dili doono ama wax kale ku dhici doonaan in loo yuhu maleeyo xataa in la yaqaano magaaladu soo galaya meel walba maraya oo iska soconaya cid yaa tahay dhahays iyo xageed ka timid iyo xageed u socotaa ma jirto qofku isbedelaa marka wuxuu ogaanaa wixii la isu sheegaayo inay waxba ka jirinoo cuqdad dadka dhexdooda la soo abuuray inay tahay Soomaali dad isnacab ma aha laakiin waa la isnacabaysiiyaa marka kuwa isnacabaysiinaya inaan naga raali ahaada
maxaa yeelay isnacayb wax lagu gaaraayo ma jirto natiijo ah isjacayl iyo walaalnima lagu gaaraa marka magaalo walba inta joogtaay sida nabadda ay yihiin ay u joogayaan yaan looga sii darin sida ha ahaato inta danta guud iyo musaalaxada iyo wixii ku saabsanna dadka odayaasha akhyaarta ee warkooda uu soconaayo inta is haysata hadday isu keeni karaan oo masaxayn karaan ama masaxeeyaan haddayna masaxayn karin hadal ayayna dhaafin kana saas u dhahay kana saan u dhahay kana saan u dhahay ma hadal ay taagan tahay laakiin inta wax ka sii dambeeya alxamdulillahi rabbil caalamiin qofkii maanta ku baaqa oo yiraahdo saas si aan ka duwanaa wadaa waxaan filayaa inuusan helaynin cid taageerta wax taageero laga sugan waa shacbiga Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed say arrintu ka go'daaye dhammaan aan ku heshiino nabad inaan qaadano haddii adiga xataa lagu dulminayo waa hadda aan tilmaamin adduunyada la joogaynin wasayaclamu alladhiina dhalamuu أي منقلب ينقلب القف ظلم كشقية ميل لجو سجايا جرت أيمان دونه والنبي صلى الله عليه وسلم حقوق ذا وحقوق كلام مكان وتجوديسان إلى ما أنت قيامها لبدي الريود من الجيسة إلهيد من أين الجيسة لهين تي جيسة لهيد أي هردي مد عن جيسة لهين مد عن جيسة لهين تي جيسة الله يلو أي كجوديسان أنت يكون فتي كدبنا وحال داعيا كونوا ترابا عرّ النقطة ما لك أسعد من قف حتى عود وحنا شايعنا هبوا هذا ولا سؤال بس معلومس والوالا والجابة الدنيا قف صاف جري ولا واي هذا هو مركز توصلهم خير كشقة دين تكون دال ومدى الإسلام كأنفع هذا حطر كتوحطر هذا وحبوب تركنا نبكى كده يسوع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نبي حول السواق كسواق وبريو قف كسر صدقة على جربا مركز رسول كادوس ليس نوح صدقة يسوع وحول عندي ساكو شقة وحصل صدقة يسوع مركز دوسن شقيهلين وحول خير كذا هو شيء هدوسن وشيءين وحال قف دبعتين كالمايو هدونا كالمينين كل مركز صوت عند النبي وحقوري يمسك عن الشر نبكى دتك كداية بس نبكى دين تزدك ونبكى كداية أيا صدقة وإيه مركز هذا وحمد دتك وقبل كان عتا اسكن بتجري لي بس هذا وقبل كرتنا وحد وقبل كرتو وقبل مركز أمدان وأمد مسلمة ساسين أهنجت وين أهان دونتا دول كذا ولا يقانا عدو جيدو سكستو يسقط سكستو يسقط لايو دم بأوصى بعدون أهل خير أرضاه يريدكم عدو يثبتين ولا لاتين قفك حمان كشقين تاريخ ذا قريسة قفك وين كشقين تاريخ ذا قريسة قف والبو أنت خير كشقين كرت خير كشقين إلهي توفيق أنا وافجيو دباتوين كجر الله ينقرب مريو عالم كون عذر كان الله كقاضو ومدنا الصوماليات مالك سوي جوكت الله كوا منسدو دتك دبدها جري عرورته دباتها كايس إلى عرورته أوتوسيو إلهي سبحانه دينته وقصه أنت جودها كجرتو دباتوين كيكوها يعني دجالة وحنا مدنا إلهي نبض عامة هوسو دجيو عذر كان يكرونه الله نضافيه وصلى الله على سيدنا محمد. هذا حنوصل فاتحة سنة إن شاء الله تعالى فاتحة ومرة ساكنتنا على كلمة جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله.